السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeeni ma ogtahay in ixaasku carabkiisu uu banaanku soo bixin karin. Ma ogtahay in matxafka ugu weyn adduunka uu ku yaalo waddanka Masar ama Egypt, gaar ahaan magaalada Alexandria. Ma ogtahay in xisaabta ninkii ku soo daray jajabka tobanlaha uu ahaa Jamshid bin Mas'ud. Ma ogtahay in DNA ama deoxynucleic acid ay soo saareen James Watson iyo Franz Crick sanadka markuu ahaa 1953. Ma ogtahay in dalka Iceland uu yahay wadankii ugu horreeyay sharci ka dhiga ilma iskiridista 1935. Ma ogtahay caalamkii ugu horreeyay dalalka Islaamka ee ku guuleystay abaalmarinta Nobel Physics in uu ahaa Professor Maxamed Cabdisalaan oo u dhashay dalka Pakistan. Ma ogtahay in ceelkii ugu horreeyay dunida ee nafta laga soo saaro la qoday 1859. Mase ogtahay in ceelka laga qoday gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. Ma ogtahay haweeneydii ugu horreysay ee hal dembi laba jeer lagu kala xukumo ay ahayd Suheyla Andrews. Se ogtahay inay kala xukumeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway afduub diyaaradeed awgeed. Ma ogtahay in karootadii ugu cusleed adduunka la ogaaday 2017 taasoo culeyskeeda lagu sheegay 10.17 kg. Se ogtahay in uu beeray nin u dhashay waddanka Mareykanka kaasoo lagu magacaabi jiray Christopher Coelho. Ma ogtahay in dagaalkii ugu dheeraa adduunka uu dhexmaray wadamada kale ah France iyo England kaasoo socday 115 sano loona yaqaanay dagaalkii qarniga inta u dhaxaysay 1338 ilaa 1453. Ma ogtahay in waddanka adduunka ugu dhulka yar uu yahay waddanka Vatican, wuxuuna leeyahay baaxad dhul oo gaaraysa 44 hektar oo keliya. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, share, lana wadaag asxaabtaada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.